iyadoo maalintii salahayn magaalada Hargeysa ay kulan ku yeesheen saddex xisbi qaran oo Somaliland kulankaas oo hamin lagu arisanayay sidii doorasho uga qabsan lahayd Somaliland ayaa kulankaas oo hamin la isku afgaran waayay isla marhaanta xisbiga mucaaradka wadani oo gabiyahan ka soo horjeestay go'aanadii iyo kulankaas ay isugu yimaadeen saddex xisbi qaran haddaba wasiirka wasaaradda boosaysta Somaliland oo maanta la hadlayay qaar ka mid ah feedo gobolka Awdal ayaa waxa uu ka hadlay dibdhaca ku yimid doorashooyinkaas iyo kulanka yeesheen saddex xisbi qaran oo Somaliland isagoo ka eedeeyay xisbiga mucaaradka wadani inuu hortaagan yahay in doorasho ka qabsato Somaliland waxaanu fariimo u diray xisbiga mucaaradka wadani ugu horreyn wasiirka wasaaradda boosaysta Somaliland oo arrimahaas ka hadlaya waxa la ka mid ahaa waxa jirta oo warbaahinta ka arkaynay in doorashooyinkii Somaliland ay muddo dhaaf ku jirto xisbiyaduna runtii ay aad uga hadlayeen gaar ahaan xisbiga wadani oo had iyo jeer gorgortan aan sal iyo raatoona lahayn iyo cagajiid oo doorashada ku wado ay u muuqato Somaliland waxa quraateen iibinaynaana waddankan ay nahay waxa weeyaan doorashada inay waqtigii loogu talagalay qabsoonto waxaynu geeska Afrika oo ahayn role model wax iftiin soo baxayo oo ku daydaan dhammaan geeska oo naga daydaan qiyaas ay qaataan bay ahayd ma aha quraata inay caalamku inoogu soo joogsanay laakiin waa waxa inagu aan isku maamulayna ku kala soconay waa doorashooyinku inuu waddanka ka qabsoomaan haddii doorashadu markasta dib loo dhacdo oo la riixo oo xisbiyadu mucaaradkii ay mid ku taag ka dhigaan iyo dib u riixid ka dhigaan taas waxay dib u keenaysaa qaranka Jamhuuriyadda Somaliland inayna ku fikiraan si madax bannaan bay ahayd inay horumar ka sameeyay ahayd waxaan ugu baaqayaa mar labaad xisbiga wadani gaar ahaan inuu ku soo dhawaado xaqiiqda waddanka jirta uu kala shaqeeyo xisbiyada qaranka siday doorasho u qabsoomi lahayd sidoo kale wasiirka wasaaradda boosaysta Somaliland Mustafe ayaa waxa uu ka hadlay caydhinta dowladda federaalka Soomaaliya ay ka cayrisa Soomaaliya ergayga Qaramada Midobay qaabilsanaa Somaliland iyo Soomaaliya waxaana uu sheegay in go'aankaasi ahaa mid ay ku degdegtay dowladda federaalka Soomaaliya waa kan wasiirka wasaaradda boosaysta Somaliland oo arrimahaas ka hadlaya Soomaaliya ergayga Qaramada Midobay ee Soomaaliya laga cayliyay fudaydkii maamulka koonfureed ee farmaajo xukuumay awalba uu kula dhaqmayay Somaliland iyo aburuntii uu ku hayay unbay tan la mid tahay iyo dictatornimadii unbay muujinaysaa waxaan leeyahay UN gaar ha u eegto Somaliland ha ku soo dhawaato Somaliland inda gaarana lagu eegto waxa Soomaaliya ku samaysayna waa wax maamulka xamar ku eeg muujinaysa fudaydkoogii iyo madaxdiigoogii awalba ay qabeen Mustafe Slnd TV